halkani waa tuulada Burshaashiq degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Burshaashiq iyo tuulooyin dhowr ah oo ku xeeran sida Ceel Xarar, Xaruur iyo Xaaji Cali ayaan booqday si aan ugu kuurgalo nolosha dhabta ah ay ku nool yihiin dadka degan tuulooyinka ka fogfog magaalooyinka. Burshaashiq ayaa degmada Cadale waxay u jirtaa in ka badan qiyaas ahaan 50 kiiloomitir, waxaana kula kulmay tuulada waxgaradka, haweenka, dhalinyarada, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool tuuladaasi. waxa ayna ii sheegeen in tuulada aysan lahayn ceel biyood, xarun caafimaad, iskuul iyo guud ahaan waxyaabaha nolosha bini'aadamka aasaasiga u ah. marka waxa dhibaatada hayso intaas ay u badanta biyo la'aan, daawo la'aan, dugsi la'aan, intaas oo dhamay ay u badanta waxbarasho. kaalmaha daan helayno biyo ka kooban, caafimaadka xoolaha ka kooban, halka dadka ka kooban, cuntada dadka ka kooban, unuku wili xaqiina dayow hayna. walow islaanti waa umula tira 500 ba inta 5 milyan looga qaadaa, isbitaal male, umulisa male, biyaha ka daran, dhibaatadooran haysata. marka la joogo Burshaashiq iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa foostada biyaha ah waxaa la iibiyaa 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah ilaa 200 oo shilinka Soomaaliga ah, waxaana dadka ku nool tuulada ay ii sheegeen in ceelku ugu dhow tuulada uu u jiro qiyaas ahaan 30 kiiloomitir. dhibaatada haysa waa afar shay biyaha ugu muhiima, biyo nimaan haysan ma dukado mana cuno mana cabiyo. biyaha ugu muhiima unuku sheeada badan in badanan ee tameeyay ee daynuna wili wax kuma heli, waxaan heli doona ilaahay weynaa og. dhibaatadaynu ilaa 30 sano ayayna haysaa. salaada 5 salaadood hal weesa qaadan ku dukana, baahidana haysatana unuka kaalma adduunka naga soo gaara wili waa noo dhimayhi. kaalmaha daan helayno biyo ka kooban, caafimaadka xoolaha ka kooban, halka dadka ka kooban, cuntada dadka ka kooban, unuku wili xaqiina dayow hayna. ilaahay ayaan sugaynaa, dibadeerna idinka dawladda ahayno idin sugaynaa. haddii naloo kaalmeey kara ha naloo kaalmeeyo. waxaan ugu hayaa biyo la'aan, waxaan haysta maaragta baahi badan. 4 tuuladaanu 3 subaxley oo ceelkeedu haajiriye Xaaji Cali ceelaa buu leeyahay, ninka la yiraaho ceel mulo ceelaa ku yaal, meesha la yiraaho ceel xarar ceelaa ku yaal. mahan waa biyo ka dheer, waa meel muslimka dadka hor baabaasaya. ceel ma haysano, isgool ma haysano, waxbarasho male, biyo ma haysano. waxa hadda loo yimid ku-xigeenka gobolka, ku-xigeenka gobolka wixii hadda iyo ilaahay un baan sugaynaa iyo waxaan iyaga ka helno. wariyaasha kulli waxa noo yimidna waa mahadsan. biyuhu waxay muhiim u yihiin guud ahaan nolosha bini'aadamka. Muuse Cali waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka, waxa uuna ii sheegay in 5 salaadood hal mar ay weysaystaan ama ay gabagabaystaan biyo la'aanta ka jirta deegaanka awgeed. dadkaanu 5 salaadood wuxuu ku dukadaa hal weysa qaad, haba gegebaysi. mugga ugu koobaad waa biyaha haddaan taasidi u jeedin saaca kan fuusto 200 ayaan cabow haynaa. baahidu waana haysataa, cuntadu iyo waxa waaye adduunku sidoo u yaal ilaahaygu weynaayaa og. laakiin wax noloo kaalmay haya iyo saanu qeylahayna waxa banas dhahow haynaa. kaalmo adduunyada ka maba jiraan isla hayna. ilaanka haddii kaalmo jiraan dadka kan baahida biyaha ugu kooba, baahida dadka hoo cuntada ha ugu lama, caafimaadka ugu 3. dadka kale magaciisa nin qoraya waa ku gaaban yahay, aqoontu waa ugu afaraysa. 4 shay ha nagala soo gaara haddii adduunyada wax leesu qabahay. haddaan leesu qabahayna sallallahu alayhi wa sallam kugu manaalo ismanaan haddaan lehdina waa ku go'naa. ilaa ka gudoomiyaha gobolka idin soo gudbi doona dhaqaalahaynu soo u yaalin iyo dhibaatadaynu. waa meel muslimka dadka hor baabaasaya. haanta bahasha halka fuusto oo biya 150 kuma lagu shubaa. 150 lagu shubaa. baahidana haysata intaas waa badarka. Ceel Xarar waa ceelka ugu dhow Burshaashiq, hase ahaatee isna 3 maalin kadib ayaa la carabixiyaa, waxaana ceelkaasi carabixiyo mid ka mid ah
dadka deegaanka. xilligii aan gaaray ceel harar ayaa waxaa la kulmay iyadoo la carab bixinayo, hase ahaatee ninka carab bixinayay ayaa lagu soo bixiyey xarig. dabadeedna markii bannaanka la keenay ninkaasi uu meyr daboolmay kuleelka ceelka awgeed, waxaana xaalku uu ahaa sida tan. carrada meeshaan taale 3 beri ka bacdi la soo bixiyaa. ceelku wuxuu hal isugu jiraa inuu gebigiisa dhanba burburo isku dhex dumo. ninka laga soo bixiyay waa arkaysa waa ka meeshaas yaalla oo carrada soo bixiyay. hawdii la egyahay nin halisa waaye tabcaana tabartan haysataas waaye. waa kana xirigan 180 mitir oo ka keenay waaya. xirigaasa loo keenay ninka. carrada waxaa u keenay arneylka meel soko jooga. baal arneyl ilaa ku jira halka oo nimanka la soo keenay oo farsamada ay geliyeen. awooddan waxay dhamaa weyday arneylkaas inaan qarash helno, inaan sikino oo salka ma carrada ka cilay aanu geyno. ceelku qudisna waa rabiya, carradaas ka bixin uu rabaa, wuxuu rabaa arneylkaas kale kor laga saaro riixa salka geey. ninka suuxsan oo arkayso meeshaas yaalla waxaa ku dhacay wuxuu galay ceelkaas 180 mitir oo carro ka soo bixiyay. waxaa looga soo baxshay canjalkan adanbayaysiin iyo xiriga. waxaa marka u keenay wuxuu dhex galaa biyahaas waa kuleel halisoo ku jiraa ninkaas. waxaa u keenay dhibaatada u keentay waxaa 180 mitir alga. hay'adaha ceelasha qodo waxaan ka codsanaynaa inay naga kaalmeeyaan tabartaasna haysa oo xagga aninka dhaqaalaha waan weerihiin dhaqaalama haysan. horta marka hore waxaan u mahad celiyaa saxaafadda aad iyo aad maaragtay isugu dayday inay dadkan ay u timaado. baahidu ay dadkan ay ka jirto aad u jeediin oo dalkan aan waxbarasho lahaynin oosan lahaynin maaragtay ceelkiisa oo adagtiin hadda inuu waxa hadda wali gacanta lagu haayo xataa waaga wax laga sii qabto maalinba wax laga qaado haayo. marka aad u mahadsantihiin haddaad ummadda Soomaaliyeed aad u bandhigteen. gobolka Shabeellada Dhexe ku taal degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe hoos tagta. baahida ka jirta mid la koobi kara ma ahan. sidaad ogtihiinba waxbarasho male, caafimaad male oo male waxa maaragtay dad oo wax qabsada oo ama maaragtay meelaha isaga jaajuqdaan isaga jiraan xoolo dhaqata waa masaar iyaambo ay ku adeegtaan ul dhaxool ay ku ilaashadaan. ceelkan inta raga ku qarash beelay intaas wuxuu mataqaana ku tabarucayay walaalihiis. qarashka waa ka tabareeray intan meesha joogtaan dadka xoolo qalay waay. haddii soo mataqaana ku qarash beelana carra soo buuxisay waxbarasho ma leh. carrada markay soo buuxisay wali waa qarash beelin dadka meesha waa qarash beelin. hadda qarash beelan dadka waa kala istaagsan yahay. waa kana u jeedi hadda ka soo biis waa bixid soo taala hanti male waan soo taasay yarta tuulid sidaan ay u taala waxbarasho male isbitaal male wax bay leedahay male maya qaybta xawaala ku yaala qaybta dadku caadi isaga dhinto qoftu malku mudilo qaybtaas oo iska aadan qoftu malku mud kala yimaado oon mataqaana oon jirka la soo diristo jadeeco kaneeco jira ka soo noqoto kalaam sato kale tood aad lagu leeyahay meeshan. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdilaahi Axmed Shitaawe ayaa ku baaqay in la gargaaro dadka ku nool Bursashiiq iyo tuulooyinka ku xeeran ka gobol ahaana ay gacan ka geysan doonaan gargaarka dadkani ku nool tuulooyinkani ka fogfog magaalooyinka. degmada Cadale tuulooyinka hoos tago ahoo Bursashiiq oo ilaa ay weli say u dhalatay gobolka Shabeellaha ama maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayna soo gaarin maamulkooda ayaan maanta booqashadii koowaad ku nimid. markii aan ku nimidna waxaan la kulannay odayaasha deegaanka degan hadda idinkaaba arkaysiin waxay sheegaan dhibaatooyinka ka jira tuuladan waa dhibaato aad iyo aad u ballaaran. hadday naqato waxbarasho, hadday naqato caafimaad, hadday naqato biyo, intaba ayagoo weliba haddeer abaarihii xooga badnaayo dalka soo maray ay hadda ka soo kabsanayeen ayaa waxaa ugu sii darsoontay biyo la'aan, ceel la'aan, waxbarasho la'aan. maanta gabadhii meeshaan ku umusho magaalada Muqdisho ama gobolka Shabeellada Dhexe magaalada madaxdiisa Jowhar uguma saqayso
meel caafimaad marka intaas waa dhibaato ka jirta tuuladan annaga ka gobol ahaan waa iska tabaryarnahay laakiin waxaan u sheegaynaa beesha caalamka ha naqata ama dowladda federaalka ha naqatee amba hay-adaha gargaara ummadda oo wax u tara ha naqatee inay tuuladan bursho sheekh la yidhaahdo ay wax u qabtaan ka gobol ahaan amni hadday naqato iyo wax allaala wixii nooga kaga baadana diyaaraan u nahay waa amni 24 saac waa la imaan karaa hay-adaha ummadda gargaara inay si degdega ku yimaadiin ay tuuladan ummadda degan wax u qabtaana aad iyo aad u codsanaynaa ka gobol ahaanna wixii nooga aadan iyo waxaan ka tari karna waa ka taraynaa insha allahu tacaala tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinka Warshiiq iyo Cadale ayaa sidoo kale aan u kurgeli doonaa xaaladaha dhanka nolosha ah sida amni iyo waliba waxbarasho caafimaad iyo waliba tanbiyaha oo tuuladani ay tahay mid aad u liidato waxaana saacadaha soo socda iyo waliba maalmaha soo socda aan sii gaari doonaa tuulooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV degmo xeebeedka Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe